garoonka Power League waxa uu ka mid yahay garoonadii hore uu xadhiga uga jiray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Xildhiid waqtigii uu ku jiray campaign kololaha ayaa ah garoon wax badan ka bedelay saaxadda sportska gobolka waxaana uu tartan ciyaareed u qabtay dhalinyartii hore ee imika cuslaatay balse aan fursad u helin inay dib u soo celiyaan xirfadii kubadeed ay lahaayeen maadaama uu gobolka Gabiley caan ku yahay kubadda cagta walow maalmihii ugu dambeeyay garoonka Power League uu koobab iyo tartaniista bajoog u qabtay dhalinyarta gobolka si uu la dagaalamo balwadaha iyo qabyaalada badi ragaadiyay ee ku soo noqnoqotay dhalinta dalka sidoo kale tartan ciyaareedkan loo qabtay dhalinyartii hore cuslaatay ayaa waxa qayb laxaad la ka qaaday shirkadda casriga ah ee Telesom laanteeda gobolka Gabiley oo inta badan danaysa dhiirigelinta dhalinyarta iyo dardargelinta hawlaha sportiska waana shirkadda ahmiyadda siisa dhalinyarta isla markaasina xataa iyadu tartan ciyaareedkan ku jirta si ay ugu dhiirigeliyaan dhalinyarada ugu horeyna waxaa halkaasi hadal ka jeediyay maamulka garoonka Power League Fadhi dhalinyartii hore gobolka Muruq Shabeel iyo Cabdiraxmaan sidoo kale waxaa halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha shirkadda Telesom Maxamed Xaashi madaxa suuqinta shirkadaasi Maxamed Dayib barsaabka gobolka Gabiley Ali Cabdi Cabdilaahi Cali Case oo dhamaantoodba kamid ah ciyaartooyga maanta koobkan loo qabtay tartan u qabano mas'uuliyiintii gobolka oo hogaaminayo barsaabka xigeenkii xildhibaanadii golaha deegaanka shirkadii Telesom oo aan u kala maqnayn manager hooseer dhamaantood qayb kamid ah garsoorayaashii maamulka xigeenka kastamka gaashaanle dhexe ilaa darajada heer walba leh oo heer xukuumadood leh oo macallimiin leh inaan maanta bartaan hogaamino u qabanno tartan ilaahay baa nagu nasugsiyay waanu ku faraxsanahay inaan u qabanno tartanka waxaan aad u soo dhaweynayaa macallinkii tababarka furay jirta Sheekh Maxamed Saleemaan oo ahaa nin khabiir oo Djibouti nooga yimid tababarkan furay waxaad arkaysaan maanta sawirkaas waa maalmihii ay bilaabeen odayaashu maanta sida yihiin kulli sawiradaad ku arki doontaan ciyaaraha live-afka ay soo geli doonaan waxaan kula talinayaa dhalinyarta kalena inay ku daydaan istaba socon doonaan garoonka Power League waxaad uga barateen tartamo istaba socda oo cid walba leh dhalinyartii leh jaamacadii leh aad baan ugu faraxsanahay maanta dareenkayga inuu kacsiyo ciyaarihii baa bilaabmaya anigoo muruqa oo ciyaartooyadii cuslaaday oo kamid ah ciyaaryahanada ciyaaraya waxaan lagu duulayaa boolisigii xisbigeena kulmiye uu ku soo dagaal galay ee uu campaign ku soo galay ayaynu rumaynaynaa dhalinyarta in la dhiso in aynu maaragtay hore halkaynu taaganahay uga soconno kii loogu magac daray Power League oo in muddo aba bartani ku jiray inuu tababaro academically dhalinyarta sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay ba dalacay inuu dhalinyarta cuslaatay u furo kooras halkan in muddo ay ku tababaran jireen waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa laga daydo mar akhlaaq ahaan iyo dadaal ahaan iyo sports ahaanba waxaanan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahad celinayaa dhalinyarada maamulka garoonka iyo dhalinyarada soo abaabushay wareegan xusbiga kulmiye arrimihii campaign-ka xusbiga kulmiye uu halka ugu jiray campaign-ka waxa ka mid ahaa in dhalinyarada laga joojiyo jaadka balwada dhaqanka xun kadan reegebeleenahay waxaan u diyaarnahay maanta inaanu ka joojino maanta halkan ka furaynaa koobka dhalinyarta cuslaatay ama odayaasha fududaaday haddaan idhaahnaba waxaan soo dhaweynaynaa labada kooxood kooxda gobolka ee uu hogaaminayo gudoomiyaha kabtanka gobolka Roberto Carlos Master Ali waxaan ka mid ahay aniguna kama maqlay aniga laftigayga waan ku jiray guul bay noo tahay maanta inaan wareegii u horeeyay kala qayb galno ciyaarta maanta ka furmi doonta hadii la yiraahdo Askar Stadium waxaan u leenahay way wanaagsan tahay oo in la dhiirigeliyo dadka oo balwadii laga baxaa aad iyo aad bay wanaagsan tahay dadkeena balwad baa naafaysay dhalinyartii bay naga dayaysay marka in laga daydaa oo lagu soo dhawaada oo kubadda iyo sportka la ciyaara oo wax meesha ku jira way inta meesha garoonka ku jirta waa da'daan ahayn iyo da'dii ku sii xigtay iyo da'dii kala way marka adu kulli rag badan way isku jiraan waxaan soo dhaweynaynaa anagu ka shirkadahan waxaan soo dhaweynaynaa in la dardargeliyo dhalinyarta waanu la garab taaganahay wax alla wixii horumar ay u baahan yihiin dhalintii gobolka ciyaartoydii hore madaxdii gobolka kuwii shirkadaha nabad Telesom iyo dhamaan dad badan baa ka soo qayb galay runtii waxa xusud badan in garoonkan aan maanta joogno lagu ciyaarayo uu yahay garoon wax badan ka bedelay runtii sportskii gobolka oo ku soo kordhiyay in dadkii aan fursadaha heli jiray fursado badan helaan runtii intii aan ka mid ka ahay ciyaarayay waxaan dadka halkan uga sheeganayo madaxda maamulka uga mahadnaqana in miisaan badan ragii ka dhacay raayisha loo xarjeynay hawsha hawlo ka badan la gaari doono hadii aan ugu magac daray dhalinyarada cuslaatay oo aniga laftooda aan ka mid ahay ciyaartooyga 6 kooxood baa ciyaaraya waxaanu dabaqaynaa muxuu ahaa barnaamijkii xisbiga kulmiye oo muxuu ahaa campaign-ka ku galay oo ahayd in la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo ciyaaraha sababta darteed
aniga oo ka mid ah maamulkii gobolka gudoomiye ku-xigeenkii gobolka oo aniga maanta suraalka gaaban xidhay waxaanu ciyaaraynaa kubaddii baanu ciyaaraynaa oo inoogu dambaysay muddo aad u dheer la sheegi maayo tiradee waa Yaalna Xaaji warbaahinta qaranka magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley.